halkan waa xanta wararka waxaad ku soo dhawaataan xogo warbixino iyo dhacdooyin waxyaabaan falanqeyntii faaqidada ku sameyn doona hadduu alweyn raadiyo ka noqdo daawadayaal saaxiibayaal waxa ka mid noqon doona waanu barnaamijkan idinkugu soo gudbin doonaa xilka xayoobinta iyo magacaabidda duqa muqdisho Yuusuf Xuseen Jimcaale Madaale oo bilaabatay iyada oo sargaal sare loo magacaabay inuu noqdo gudoomiye degmo ka tirsan gobolka Banaadir waxaan soo gudbin doonaa hadduu alweyn raadiyo ka noqdo warbixin iyo dhacdooyinta ku gadaamanayno barnaamijkan ku falanqeyn doono kuna faaqidi doono Saciid Cabdillaahi Deni madaxweynaha dowlad goboleedka Puntland waxa uu weli hangool iskaga hayaa Xamse Cabdi Barre ra'iisul wasaaraha Jamhuuriyadda Federaalka ee Soomaaliya waxaanu falanqeyn ku sameyn doonaa maxay tahay hoos u dhigidda ku talgalka ah ee uu sameynayo barnaamijkan ayaan ku soo gudbin doonaa iyo wiiqidda dowladda Xasan Sheekh Maxamuud ee Saciid Cabdillaahi Deni uu dhaqaajinayo warbixin ayaanu eegi doonaa sidoo kalena aan idinkugu soo gudbin doonaa hadduu alweyn raaliyo ka noqdo daawadayaal saaxiibayaal iyo kacdoon ka dhan al-shabaab oo laga dhawaaqay gobolka go'doonsan ee Bakool qodobada iyo kuwa kale ayaa daawa doontaan halkan waa xanta wararka ku biiro ka mid noqo daawadayaashii nagu xiran daawade sargaal ayaa loo magacaabay inuu noqdo gudoomiye degmo ka tirsan gobolka Banaadir gudoomiyaha gobolka Banaadir ahna duqa Muqdisho ayaa bilaabay inuu xilalka ka qaado gaar ka mid ah gudoomiyaashii degmooyinka gobolka Banaadir kuwa cusub oo bedelayana magacaabo duqa Muqdisho ayaa wareegtuu soo saaray xilka uga qaaday gudoomiyaashii degmooyinka Kaxda iyo Dharkeenley waxaana uu magacaabay gudoomiyaal cusub oo dhawaan xilkaasi la wareegaya gudoomiyaha cusub ee degmada Dharkeenley ayaa loo magacaabay Yuusuf Xundubey oo ka mid ah saraakiisha ciidanka booliiska Soomaaliya waxa uuna hadda ku magacaabnaa taliye ku-xigeenka ciidanka taraafikada sargaalkan ciidan ayaa horey u soo noqday taliye qayb ka mid ah magaalada Muqdisho waxa uuna ahaa taliye aad looga yaqaan magaalada loona xushay hadda inuu wax ka qabto falalka ammaan darro ee mararka qaar ka dhaca Dharkeenley gudoomiyaha degmada Kaxda ayaa sidoo kale loo magacaabay Cabdillaahi Sheekh Cabdiraxmaan oo ka mid ahaa dhalinyaradii banaanbaxyada ka abaabuli jiray Muqdisho xilligii dowladii Farmaajo waxaana uu ka mid ahaa taageerayaasha mayalka adag ee Xasan Sheekh Maxamuud duqa Muqdisho ayaa sidoo kale la filayaa in maalmaha soo socda uu xilka ka qaado gudoomiyaal degmo waxaana xilka qaadista uu bilaabay Yuusuf Madaale imaanaysa xilli uusan madaxweyne Xasan Sheekh weli magacaabin gudoomiye xigeenada gobolka Banaadir Deni ayaa eegi doonaa Saciid waxa uu markaasi qaaday ama uu weli hangool ku hayaa Xamse Cabdi Barre ra'iisul wasaaraha Soomaaliya madaxweynaha Puntland ayaa dhowr jeer waxa uu si cad u diiday inuu la kulmo ra'iisul wasaaraha Soomaaliya waa sir shaac ah in aysan weli foolka fool u kulmin madaxweynaha Puntland Saciid Cabdillaahi Deni iyo ra'iisul wasaaraha xukuumadda federaalka ee Soomaaliya Xamse Cabdi Barre tan iyo markii bishii Juun loo soo magacaabay wasiirka koowaad fursado dhowr ah oo ay suuragal ahayd in labada mas'uul ay ku kulmaan ayaa waxa arintaasi ka maagtay ama si cad uga hor yimid madaxweyne Deni sida markaasi aynu fahamsanahay markii ugu dhaweyd oo labada dhinac ay isku arki lahaayeen waa shirkii hogaamiyaasha maamulada iyo federaalka ku yeesheen Muqdisho kaasoo Deni uu doortay inuu kaga qayb galo aqaab fogaan aragga sida ay markaasi qeexeen dad xog ogaal ah Deni ayaa ka gadoodsan in Xamse uu qaatay kursigii uu isagu goobayay uuna weli la nool yahay caradaasi xataa ayada oo uu soo dhamaaday ololihii doorashada madaxtinimada federaaliga madaxweyne Deni ayaa aad iskugu dhabarjibiyay in isaga loo magacaabo xilka ra'iisul wasaaraha ama qof uu isaga soo jeediyo taas oo haddii ay dhici lahayd uu aaminsanaa inuu ka badbaadi doono wajigabax siyaasadeed oo uu kala kulmo Puntland ayuu yiri qof wargal ah hoos u dhigid ku talagal ah shakhsiyaad aad ugu dhow Deni ayaa u xaqiijinaya warbaahinta xanta wararka in madaxweynuhu uusan doonaynin inuu madaxda
kor u soo qaado siyaasi aan isaga ahayn marka lasoo hadal qaado awood qaybsiga deegaan doorashadiisu. tiro 2 jeer ah ayuu madaxweynaha Puntland Saciid Cabdulaahi Deni ka hor istaagay Xamse Cabdi Barre inuu booqdo Puntland, iyadoo markii ugu dambeysay aanan ra'iisul wasaaraha laga casuumin fooritaankii dekedda Garacad. taas beddelkeedana uu madaxweyne xasan sheekh maxamuud ku qasbanaaday inuu dekedda xariga ka jaro, ayay raaciyaan xubnahaasi. waxaanu ogaanaynaa inuusan xitaa jirin xiriir dhanka isgaarsiinta ah oo ka dhexeeya Deni iyo Xamse. warar kale waxay soo jeedinayaan in madaxweynaha Puntland uu dhowr jeer ka jawaabi waayay wicitaanka ra'iisul wasaaraha. hogaamiyaasha dowlad goboleedyada iyo dowladda federaalka Soomaaliya ayaa mar kale ku kulmaya caasimadda Muqdisho maalmaha soo aadan. lama oga in Deni uu ka qaybgali doono is-araggan looga hadlayo xaalka dalka. madaxweyne Cabdilcasiis Laftagareen oo ah kan kaliya oo madaxda maamulada ay ka qayb galay daafurka furitaanka Garacad dekeddaasi ayaa maanta ka soo degay garoonka diyaaradaha Aadan ee Muqdisho, xilli la filayo in madaxda maamul goboleedyadu ay soo gaaraan Muqdisho si ay uga qayb galaan shirka madaxweynuhu uu iclaamiyay isagoo ka soo degay garoonka diyaaradaha Aadan. wiiqidda dowladda xasan sheekh maxamuud. Deni oo haatan ku guda jira bilooyinkii ugu dambeeyay xilhayntiisa madaxtinimada Puntland ayaa damacsan inuu samaysto muddo kororsiimo isagoo oo adeegsanaya kaarka qof iyo cod si uu mar kale iskugu soo taago madaxtinimada Soomaaliya. doorashada 2026 dadka aadka ula socda dhaqdhaqaaqa Deni ayaa sheegaya in madaxweynaha Puntland uu muddooyinkii ugu dambeeyay waqti gelinayay inuu xiriir iyo iskaashi dhow la yeesho dowlad goboleedyada. ujeedada ugu weyn ee cilaaqaadkaasi waa in uu adeegsado wiiqidda dowladda xasan sheekh iyo inaysan gaarin guulo markaasi lebin siin karta doorashada 2026 oo Deni damac ugu jiro, ayay xuseen ilo wareedyada. madaxweynaha Puntland ayaa guuldaro siyaasadeed kala soo laabtay doorashadii madaxtinimada Soomaaliya ee uu ku soo baxay xasan sheekh maxamuud. musharaxnimadiisu waxaa halbeeg u ahayd inuu markaasi dagaalamay nidaamkii farmaajo. waa uu dhaqan inuu mar walba iska dhigo mid ka shaqeynaya danaha Puntland ama uu magacaabo Puntland uu kula dagaalamo dowladda federaalka Soomaaliya si uu u gaaro riyadiisa inuu maalin un madax ka noqdo Soomaaliya. marin habaabintaasi ayuu mar kale maleegayaa, ayay tibaaxeen dad isagu dhaqdhaqaaqaasi la socda ama dareensan oo aanu la hadalnay. gobolka Bakool ama markaasi ayaa laga bilaabay dhaqdhaqaaq ka dhan ururkaasi al-shabaab, gaar ahaan Xudur oo go'doon u ahayd al-shabaab dhowrkii sano ee soo tagnay. waxaa marba marka kasii dambeysa sii xoogeysanaya kacdoonka ka dhanka al-shabaab, kaasoo ka bilowday gobollo ka mid ah Soomaaliya tan iyo markii la soo doortay madaxweynaha cusub ee Soomaaliya xasan sheekh maxamuud. kacdoonka markii hore ka bilowday gobolka Hiiraan, Galgaduud, Mudug ayaa hadda waxaa ku soo biiray deegaano cusub oo dhaca koonfur galbeed. qaar ka tirsan shacabka ku dhagan degmada Xudur ee gobolka Bakool ayaa bilaabay abaabul hubeysan oo ka dhan ah ururka al-shabaab. shacabka ayaa sheegay inay doonayaan inay ka qayb noqdaan howlgallada ka dhanka al-shabaab ee ka socda koonfurta iyo bartamaha dalka. haween, dhalinyaro iyo dogooy ayaa ka soo muuqday gudaha magaalada, kuwaasi oo ku hubeysanaa hubka kuwa fudfudud ee garbaha la sudho. waxaana ay sheegeen inay degmada Xudur iyo deegaanada hoostaga ay doonayaan in al-shabaab ay ka xureeyaan, sida ay sheegeen dadka deegaanka ee iyagu markaasi fagaaraha ka soo muuqday. kooxda al-shabaab ayaa muddo dhowr sano ah waxay go'doon gelisay Xudur, waxaana magaalada u furan oo keliya dhanka cirka. kooxda al-shabaab ayaa markan wajahayso kacdoonkii ugu weynaa tan iyo markii la aasaasay kooxdan, waxayna madaxda dowladda Soomaaliya ballan qaadeen inay 2 sano gudahood uga saari doonaan guud ahaan dalka. dowladdu hogaamiye xasan sheekh maxamuud ayaa maatankeedii koowaad lagaga dhawaaqay al-shabaab in laga saari doono guud ahaan dalka. tallaabooyinkaasi ayaa dhaqaaqay iyada oo ay markaasi dhaqdhaqaaqyo xooggan ka bilowdeen Hiiraan, Galgaduud iyo Shabeellada Dhexe. iminkana dhanka iyo Bakool ayuu dhaqdhaqaaq ku gaaray. halkan waa xanta wararka, waxaan ku dhaafnaa sida iyo amaana Allah. fadlan ku biiro ka mid noqo daawadayaasha iyo saaxiibada nagu xiran daawade.